Professor Ahmed Ismail Samatar oo habeenkii xalay ahayd munaasabad loogu qabtay Hotel Mansour ee magaalada Berbera kulankan ayaa daarnaa soo bandhigida buugga siyaasadeedka xisbi xaakimka kulmiye shanta sano ee soo socda haddii uu mar labaad ku guuleysto talada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland madashan ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta gobolka Saaxil aqoon-yahanka ku dhaqan magaalada xebeedda Berbera oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshadu ka kooban tahay ayaa uu sharaxay professorku amuurta buuggan siyaasadeedka xisbi xaakimka kulmiye waxaanu yiri qaadan doonta shantan sanadood iyo 10 iyo laga yaabo oo sii jiitan laakiin ay nahay dad ka soo guuraya nacasnimadii qabiilka ka soo guuray oo u guuray meel kale oo magaceedu yahay wadaniyiin citizens wadan wada wadaaga amba ceelaayo ku noolol iyo inta ka sii shisheys amba la yaacad degano iyo inta u dhaxaysa inaynu noqonayno dad u guuraya meel qofku uu yahay citizen inuu yahay qofku wadanka uu leeyahay xilliga kulmiye boorkiisan waxa hoostiisa ku aasan oo isweydiinay saddex su'aalood oo reer Soomaaliland hor yaalay ilaa 1960kii hor yaalay aadna loo shaaciyo aadna u soo baxay wixii ka dambeeyay 18th May 1992 oo 26 sanadood iyo bar imika si aad u kulul la isku weydiinay laakiin horena miiska u yaalay saddex su'aalood xisbigii saddexdaas su'aalood ka jawaaba waxaan qabaa wuxuu qalmaa xisbigaasi inuu guuleysto oo codka la siiyo waxaan ku kalsoonahay haddii ay kulmiyeen saddexdaas su'aalood jawaabteedii inaad buugga ka helaysaan kow maxay tahay ugu horeysa su'aasha ugu horeysa waxa weeye reer Soomaaliland baynu nahay okay laakiin in si buuxda oo gundar loo macneeyo who are we yaynu nahay ya ma waxaynu nahay isaaq iyo bahante iyo sangali iyo samaroon iyo gaboye iyo ciise ma waxaasayna mise waxaynu nahay ummad la yiraaho Somaliland labada horta in la kala barto way labada haddaad isku badaxdo aanu way khaayis lama cabi karay soo garanaysa marka inaynu dib u fahmayno dib u naqshadayno energy cusub galino inagoo isku macnaynayno dadka aynu nahay who are we community-ga aynu nahay halkaasi waxaad ka arki doontaan xisbiga inuu ka jawaabo su'aasha labaad haddii aynu nahay reer Somaliland ururkii aynu abuurnay 1960 ee aynu ugu horeynay dadkii dhagaxii ugu horeeyay ururkii Soomaali weyn aynu nahay maxaa inagu kalifay ururka inaynu ka baxno maxaa inagu kalifay tan waa la macneeya oo carruurta soo socota loo macneeya intii ma imika nool 20 sanadood ugu dambeeyay oo taariikhdu ma waa in qof walba ay fahamsan yahay sababaha badan ee keenay ururkii aynu sameynay inuu maalin qoran idhaano tan inama khaarijinayse ana waan ka noqonay waxa iyagina waan soo qaadanay inaynu waa tan in la macneey laga jawaabo ومستقبل إلى الإسويدينو حمدين محيطة رياضين محيطة حولين بامارين تعينون هي أي داقة يا باي أبارتها يسمى دمقلة نافو gunaanadkii xafladan oo ay su'aalo kala duwan halkaasi ku weydiiyeen Professor Ahmed Ismail Samatar dadweynaha tirada badan ee halkaasi isugu yimi waxa kamid ahaa wasiirada Soomaaliland iyo wasiirka xigeenada iyo diijiyada iyo barasabada iyo beeyada iyo cid kale shaqo ku xigeenadooda iyo gudaba madaxtooyada waa wasiirka madaxweynaha qofka fiiska madaxweynaha Soomaaliya ay ku إلى رأيه وزير Somaliland كما تقول نقول أحسن فريابته تا حالة طبيعية badhiga magaalada Berbera oo xalay toole aqoon-yahan Ahmed Ismail Samatar oo ku qabtay amaba uu ku tusaaleynayay xisbi xaakimka kulmiye iyo ballanqaadada shanta sano ee soo socda ayuu gobolka Saaxil noqonaya kii afraad ee filan oo kale uu uga qabto Cabdirashiid Mubaarak Cabdirashiid Soo telefishinka caalamiga Somali Cable magaalada Berbera